السلام عليكم. falsafada iskaandhatirka si aad ugu noolaato nolol maalmeeddanan murugo iyo iska horimaad joogtaa lahayn waa inaad isticmaasho falsafada iskaandhatirka oo aad muhiim u ah wakhtigan aan joogno. ku soo dhowaada mawduuc kooban. nolosheenna maalintii waxaana soo mara mawjado warar xun ah, maqalka waxaanan ku cajabinin, aragtida commenti ama faalle kaa caraysiiso, wararka tiifiyada ee maska xanuunka leh. haddaba haddii aad isku daydo inaad dhammaan mawjadahaas xun aad u jawaabto, ama aad isku daydo inaad xalliso ama isku mashquuliso, noloshaada waxay isu beddelaysaa jaxiimo holacmado tufayso. heer waxaad gaaraysaa aad habeenkii seexan weyda murug iyo walbahaar awgeed. waxaa jirta xikmad leh dusha ha u ridan dhibaatada adduunka oo dhan, sababtoo ah ma qaadi kartid. tusaale, adigoo facebook ama youtube ku jira ayaad aragtay faallo ama commenti aanan ku cajabinin ama kaa xanaajiyey. haddaba inaad u jawaabto oo aad dhibaato maskaxeed ood ka maaranta isku furto, tamarna kaa baxda qasamiya arrinkaas. inta aadan qorin jawaabta isweydii, haddii aan qofkan u jawaabo oo aan caayo asagana i caayo maxaan faa'iidi? falsafada iskaandhatirka waa in aad kuba mashquulin qiimana siinin arrimahaasoo kale. bani aadamka waa makhluuq daciifa oo caatifo ka samaysan. haddii aad dhex gasho jawaab iyo jawaab celin iyo caro, arrinka fara ayuu ka sii bixi, heer uu caqabad ku noqdo geedi socodka noloshaada iyo horumarkeeda. adigoo tv daawanaya ayaad aragtay nin caayaya siyaasi ama koox ama dawlad ama maamul aad jeceshahay. haddaba intii dhiig kugu kici lahaa oo aad ciil iyo mashaakil kale geli lahayd, iska beddel haba daawan. waxaana fiican qofka in noloshiisa uusan ku xidhin koox, maamul ama dawlad. naftaada muhiim sii, wax kasta ayaga hagaagiya. ciilka iyo carada waa waxyaabaha nolosha naafeeyo. qofkaas hadlaya ha u oggolaan inuu saamayn xun ku yeesho noloshaada, isla markaasoo maskaxdaada ka saar. taas micnaheedu ma ahan in aad noqoto qof aanan damiir lahayn oon waxba la soconin. maya, keliya waa inaad dhinaca mugdiga ee noloshaada gubaayo iska sii jeedisaa. nin ayaa nebiga sala allahu caley wasallam u imaaday, wuxuuna weydiistay dardaaran degdega oo kooban. nebigu wuxuu ugu jawaabay, laa taqdab, ha caroonin. caradu waa musiibo wax burburiso. in aadan caroonin waxaa ka mid ah inaad ka fogaato wax kasta oo caro keenayo. adduun waxaan ku jirnaa wararka iyo warbaahintu yihiin sidii dabaylo socda oo kale. qofkii israaciyaana waxaa hubaal in dabaylahaas qaadi doonaan. trump ayaa nacaayay maanta, hebel ayaa soomaali yasay, hebelaya ayaa qabiilkeenna cayday, gooniysutaagga somalilan ayuu diidan yahay, maya midnimada ayuu diidan yahay, dab casar ayaa nacaayay. ma aragtay waxa uu yidhi coldoon? ma maqashay daahir calasow oo qabiilkeenna caayay? habaryar milyuun ayaa maanta nacayday. waxaasoo dhan oo ah wax aanan waxba soo kordhinaynin isku mashquulinteeda. waa inuu qofka dhallinyaradae xortaa ka fogaadaa, wakhtina siinin, kuna ridaa godka hilmaanka. nin ayaa yidhi haddii aad ey kasta oo qaylinaya dhagax ku tuurto, weligaa meel ma gaaraysid. adigoo qof dhallinyaro oo ilaahay caqli siiyey in aad dad xaalkoodu ilaahay og yahay wakhtigaada ku lumiso, waa arrin aad u xun. haddii aad hal bil ku dhaqanto falsafada iskaandhatirka, waxaad dareemi nolol buuqla'aana oo aad u macaan, xasiloonna. aan ku soo gebagabayn xadiid muhiim ah oo rasuulku yidhi sala allahu calayh wasallam, min xusni islaami almar'i tarkuhu maa laa yacnii. wanaagga islaamnimada qofka waa inuu ka tagaa waxa aanan qusaynin. in aadan wax kasta sanka la gelin. wax ku quseeya miyaa inaad u jawaabto commenti qof caytamaayo, inaad la muranto dad aanan waxba kugu soo biirinaynin.